Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa salaamantiin ardaydeeda meel kasta joogtaan iyo si walba muuqaalkan u daawanaysaan. Cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee baa u diiwaangelin lahayd haddii aad service u qabato qofka mid customer-kaaga. Taas macnaheedu muxuu yahay? Waxaan tusaale ahaan dukaankaaga product noo iibiyaa service noo qabtaa. Service aa qabato. Service haddii aadan aqaanin macnaheedu waxaa waaye inaad shaqo aa qabato. Shaqo aa qabato macnaheedu maxaa waaye? Shaqo aa qabatay lacagaa lagu siiyey. Tusaale ahaan mobile aad samaysay. Okay. shirkad isgaarsiin tahay customer-ka wax u qabatay adeeg u qabatay wax kasto adeeg la qabanayo aan product aan la iibinaynin waxa loo yaqaan service. macaamil kamid macaamiisha inaan noo imaaday dukaankeena electronic u imaaday wuxuu dhahay mobile-kan iga hareysan waxaan rabaa in la sameeyo. waxa ku leeshiin lacag ku leeshiin lacagtaas aan ku leeshiinay ayaan ka qaadnay adeegina u qabanay. marka intaas sidee ba u gelin lahayn QuickBooks sidoo kale saameynta ay yeelanayso haddii aad tusaale ahaan lacagtaas aad geliso inaan tuso ciyaaro. marka maxaa sugaysaan ku soo dhawaada cashirkeena. QuickBooks ayaan soo furnay. QuickBooks marka soo furno company-geena soo furnay waxaa tagay halka qoran tahay customers kadib waxaa ka sii dooran doona halka ay qoran tahay enter sales receipt. marka ku sii dhufano shaashadan yarista noo soo bixi doonto. shaashada markay noo soo baxdo halkan waxaa ka dooraysaa macaamilka aad shaqada u qabatay. haddii uu yahay macaamil hore ku save gareysnay haddii kale cash customers ka dooro. marba macaamilka inaad dooro meesha waxaa gelinaysaa item service-ka u qabatay magaciisa. okay anaga waxaa dheena mobile repair na u qabanay ninkan mobile u dayactirnay. okay waxaa gelinaynaa meesha reedka lacagta uu qabanay $20 $30 waxa rabnaa is gelinaa. waxaa iska dhahdaa $30 mobile-ka ugu sameeyay. $30 mobile-ka ugu sameeyay marka dhaano meeshan series number-ka asaa automatic isku gelina. hadda 1 waaye haddii aan kan gelino mid kale arabna gelino 2 automatic uu noqonaa. waxaan rabaa marka saameynta yeelanayso inaan iibso. macaamiil ayaa mobile ugu sameeyay waxaan ugu sameeyay lacag gaarayso $30. $30kaas saameyn noocan ay yeelan doontaa. tan koowaad revenue-geena waxaa ku darsami doona $30. revenue-geena lacagta uu yahay waxaa ku darsami doona $30. bal revenue-geena aan soo fiirno reports tag company and financial kadib waxaa ku sii doontaa profit and loss. revenue-geena waa hadda waa meeqo? revenue-geena waxaa waaye tusaale ahaan oo $120. $120 markuu revenue-geena yahay $30 ku darsamayso. $30kaas waxaa noqon doontaa almost $150. revenue-geena marka $30 markay nagu darsato revenue-geena intee kaloo saameyn doonta net income-kan hadhow way saameyn doontaa oo $30 ku darsami doonta. okay marka transaction-keena waxaa leenahay save and close. save and close markaa dhaano waa u jeedaabo transaction-kii uu dhacay. waxaa tegaynaa reports-keena kadib company customer and receivables kadib company and financial kadib profit and loss. yaa u jeedaa meeshaan $30 ku soo darsantay intee ka imaad sales revenue totalkeena waxaa ku darsantay $30. kale saameynta oo yeelan doona waxay tahay balance sheet dhinaciisa haddii aan tagno inaan tusay data laakiin no problem. reports company and financial kadib balance sheet-keena waxaa ku darsami doonta account loo yaqaan undeposited fund waxaa noogu darsami doonto $30. undeposited fund hadda $30 isla ku jirto saa rajeynayo bal aan ku dhufan $60 dooratay ka imaade asaga ku sheegayo wuxuu ku leeyahay $30 waxay ka imaatay sales receipt ee ka imaatay customer-kan oo cash customer aan noo keenay wuxuu noo sameeyay service revenue nooga imaaday. waa sii weydiin kartaa haddaa kusii dhafato wuxuu geyn doonaa transaction-kii okay hadda aan sameyno geyn doonaa. marka iska cancel iska dheh ama save and close iska dheh hore u save gareysnay laakiin save and close iska dheh. halkaasina waxaa ku eg maanta cashirkeena adoo dhaxal reebi karo ha noqon mid taal tv.